Saalax iyo dadkayga nin la dhaho Saleebaan ayaa kayn sarmaano soo ciriiriya seenyo aan yarayn iyo suuf badan ku haysto isku seegay waayaha. Subaxdii dambe geed soo wada fadhiisteen. Saleebaan wuxuu yidhi, Saalaxow hadeer orod saxaraha galbeedkii u socdaal tahriibo soo shaqee adduun oo saakada dhaqaaqo anna suufka adhiga igu daa sabeenaha. Saalixii macaasi in qowlkii sarbeebtiyo sirtu ay ku duugnayd soo qaaday shaadh iyo suuf kala sarreeyo siigo ay dirooto subax buu dhaqaajo xeebtii saaxil aadiyo raacsi ximad dheero dul sabeebadiiso saatir kuma qarqoomine socdaalkiisii nabad iyo sahal ugu dhammeeyo 3 iyo bar goortuu bilood uu maqnaa subax soo garaac midkii uu kaga tegay sanaago sadrigiisa qowldhay Saleebaan u sheegiyo wuxuu yidhi salaasada soo aad magaalku adhigaasi loon gabi kaga kaali soolko suuqaaga boodo anna saamay badan iyo lacag aan sidaan kaa kugu soo dirayay salaadana bilo oo sabtidan ka soo kici eerboodka Suuriya ugu weyn safkeedo haddaan saacadaydii dhammaan oon sadkay goyn saaxiib mar baan adigu salaami doona. Badawgii su'aal iyo hadal kale ma soo celin salfudaydna muu gabin maalkiisa lugiyo intuu ooda saaruu sabada ilaa iyo meel saxar kaga tigi oo uu sigaar iyo tuuladii sarreen iyo u doontay sooro ka sabeeyay dhaqankii Soomaalida oo idil. Kii kalena samaduu safarkiisii maraya Soomaalida tiri sawd aan la koobayn haan iyo saduuq iyo salada midna buuxshee. Saalax baa ka soo degay cigaal saacaduna waa 6 oo siyaadiyo siro waxaanay wadanoo salaadii maqrib buu ninkii socod u galo safkii aad suulkiisii midig buu dhinac saaray kii ay sirta wada lahaayeen. Saleebaan nin weyn oo garaad lagu sallaxay baa saatirkeen ka dhigay inuu Saalax yahay buu sadrigiisu sheego salaadii ilowyo sahwi baa dhaqaajo suuradu akhrinayo seef laahin geliyo sikin buu falkiisii ku dhameeyay sababtana giddi wada socotaan ku sindaayihiisii ruuxiisa juudiyo faralkii ka suulsho saafi buu u eego mise Saalax weeyo suud xiran madow oo dhexda suun cadaan iyo saacada ku kabayo sarkaal aadamoodo sanka taagayo wali ataxiyaadkii sugayo aan surgoynin faralkii. Saalax baa wuxuu yidhi assalaamu calayna. Saleebaanna midigtiyo gacantii la soo haad oo dul saar midkii kale. Saalax baa intuu naxay cadhadii Saleebaan sacab qaaday daran oo ku sawiray dhirbaaxo sunniyaha dhexdeediyo sanqaroorka dhakadii suxul kaga halgaado wuu sooxay inankii isna saaqi daran oo ku darsaday saleelnimo baa Saalax eebahay ka dhigo ma sii hubin falka uu sameeyo saamayn badaayay sancad kabalidkooda intuu qaatay suuqaasi xashiye u ajiif. Saleebaan wadaada biyaqa oo ku sayro u dulqaatay saaco quraan saaray badanoo isagoo ku sugan oo saligiisii jifay cidladii ku sooreen. Saleebaan markii uu muddo kooban saarnaa seeskiyo halkiisii ilaah baa sakhraankii iyo salowgii ka maydho miyirkii ku sugayo sidiisii ku celiyo siyay garashidiisii balse waa hongoobo suuraaf abaal dhacay baa saatir badayo waa sacaba madhayo waxa seegtay taladii soo raac dariiqo shaqo suuban waayo ilaa maanta surimada qashinka ku sugan buu u koraa sallaano dhaqdhaqaa u sooro seetada haleeshee seedaha ka qabatee socodkii u diiday qayrkii ka siibtee saboolka ka yeeshee silicaa intaa leeg sababtaa waxay tahay adhigu salaasada soolka kaga dhaqaaqa bahal suurad jaanlihi seero oodan geliyo ku soo maday ilkaha oo waxa saas u gelaya nafsi weeye sayn iyo timo soocan yeesho qof kastoo ka seexdo ka santaaga dhaqanka oo hidihiisa sayrana waayaha silsilad iyo suuf dheer ku xidhayo sinjigiyo afkeeniyo sawraceena malabka Soomaaliyeey aan saxar qura u diidno aan samaha aadno afqalaad suntiisiyo soo hidiisa dayno keenna saanac gaariyo aan sees u yeelo suugaan ku kaabno aan suur afufno Soomaalido idildhahno saylad gaariyo afkumaha suuqee yaan gaalku idin sirin cadowgiinu idin solin yaan la isku kinsarin surbacaadku idin hodin yaan siigo idin qarin luuqadiina simanee suubanee macaanka yaan seef afweyn iyo loo adeegsan soor iyo sakiin iyo bilaawiyo wax kastoo siloono suulin kara afkeenna.